dalka Uganda isla wadankaasina ku nool haatan oo da'deedu tahay 7 jir ayaa Ilaahay ku arsaaqay inay dhasho 8 caruur haweeneydaasi waxa la guursaday iyadoo yar oo 12 jir caruurteedana mararka qaar waxay dhashay 4 mataana ah sheekada inanteenaasi reer Afrika ee la yaab kale waxaa soo akhriyay haatana istuudiyaha ila jooga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac sahay kullay gabadhan waxaan filayaa qofkii arkay oo arkay markaad sidaa u aragto muuqaalkeeda iyo caruurteeda iyo kooxda barbar taagan iyo waliba siday koox dhan sawaag barbar taagan yihiin adaaba garan karaya waayahay xaaladdu say ku sugan tahay haweeneydan magac maskiinka ma aha magaceeda waxaa la yidhaahdaa Nabatanzi baa la yidhaahdaa وانا هوين ودلتي ودن كاساد ما تلمانت ودن كيوغندا ودلتي marka haweeneydan arrinka ajiib ka noqday waxa weeyaan da'deedii iyo waxa kala weynaaday tirada caruurteeda iyada da'deedu waa 37 ama waa 37 caruurta dhashayna waxa weeyaan 38 caruur markaad aragto waxaad arkaysaa odaygeedii iyadii iyo 38 caruur 40 ka qof hal mar meel soo wada istaagaya Allah ya isag waana hal qoys qura Cabdixakiin gabadhi marka hadii ay da'deedu tahay 37 caruurta dhashana ay yihiin 38 dadka qaar waxay isweydiinayaan ma ilaa dhalashadeedii bay sanad walba ilmo dhalaysay ilaa da'deedii caruurtu waa ka badan halka hal xidhaalaha ee qofkiiba maxaan ku dhahay iskaga xidhi waayay oo ka yaabaya waxa weeyaan marka la ilaa gabadhani waa 37 jir caruurta dhashayna waa 38 laakiin sahray waxay gabadhani ay u dhashay 6 jeer oo mid 2 jeer 4 jeer oo midkiiba ay 3 caruur dhashay 4 jeerna markiiba waxay dhashay 3 mataan 4 jeer oo yadii markii mid kasta waxay dhashay 3 mataan iyo 3 jeer oo markiiba ay dhashay maxaan ku yiraahdaa 4 caruur sidaas ku dhashay waxa weeye 6 jeer oo min 2 ay dhashay 4 jeer oo midkiiba ay 3 dhashay 3 jeer oo midkiiba ay dhashay 4 caruur iyo hal mar oo kii ugu dambeeyay iyadana ay dhashay caruur waan gartay ilmo kaliya marka haweeneydan yaa ka umuliya dhakhtarka 4 caruur ka dhalinaya halkuu jooga tafaasiil ma laga bixiyay inta jeer ee caruurta dhashay sida uu umushay iyo caafimaadkeedu sidoo ahaa haweeneydan Ilaahay kuma dhibin basaaray haweeneydan inta jeer ay dhashay waxay ku dhashay gurigeeda dhexdiisa marka laga tago umushii ugu dambeysay oo 4 bilood ka hor ahayd ay gurigeeda ku dhashay inta jeer kala gurigeeda ku dhashay kaw dambeeyay cusbitaal ku dhashay kaasoo kaliya cusbitaal la geeyay waa kii ugu dambeeyay qalliin bay u baahatay oo waa lagu qalay bal cilmiga kala ay u dhalaysay gurigeeda ku dhashay marka bal cilmiga Ilaahay Cabdixakiin waxa la yaab leh markay 4 caruur dhalaysay lama qalin dhakhtarna lama geeyay laakiin markay hal xabba dhalaysay qalliin bay gashay cusbitaal baa la geeyay cilmiga abada gabadhan goormay guursatay ninkeedu waa nin caynkeeya dadku waxay isweydiinayaan 38 caruur ay misanin baa u dhalay gabadhani saaray waxay guursatay iyada oo 12 jir gabar aad u yar bay ahayd aad u yar da'deedu ay yar tahay waliba 12 jir ahaatay may guursanin nin dhalinyaro isleen oo isla koreen oo da'dooda isku mid yihiin waxay guursatay nin da'da in badan ka weyn waan gartay 40 jir laba iyo wax ka badan ba ka weyn ay guursatay mar la weydiiyay waxay sheegtay inaanay garanayn ba ama aanay xasuusnayn ba xilliga guursatay maadaama yaray aabaheedu loo tagay dhaqaalo la siiyay kadibna ay sidaas ku baxday oo ay guurka ku gashay inaanay garanayn xilligaasi guurku wuxuu haystay haydintaba dabcan ninkeeduna xilligaas waxay tilmaantay inuu xaasas hore iyo waliba marweyn hore uu soo maray oo soo lahaa oo isaguna wax u soo horeeyay maadaama da'diisaba ka muuqato nin 40 jir oo yahay waan gartay marka ninka 40 jirka xaasaska hore lahaa markii uu gabadhan guursaday 4 iyo 3 iyo 2 midho soo deysay ee 8 caruur ma leh waxaan marayaa haweenkii kale albaabadooda loo soo xiray oo hadal ma jiro meel looga haleelo intanaabu kaba badinay markii 40 halkan uu joogan ku dhawaad 30 caruur hawlihii kale iyo caruurihii kale soo kordhiyay ilaa xafiisyadooda waa la soo handaraabay waa albaabada la sallaa wax kale ma jiro marka Cabdixakiin dhaqaalahooda ma laga warramo ilaa 38 caruur oo iskuul tagaya oo qaarkood yaryar yihiin qaarna waa weyn yihiin dabcan noloshu way adag tahay sidee waxa soo caruura ay noloshooda ka faala qata waliba sawirkeeda tusaysay markaan arkay caruurtu waxa uu muuqdaa caruur caafimaad qabto xoogan oo jeefa juglayaal oo maaragtay si fiican u koray waad ka dareemi karaysaa markaad muuqaalkooda aragto inay yihiin qoys saboola dabcan sahray waa qoys saboola hanti badan ma hayaan waxay ku nool yihiin goob tuulo ah
dabcan dhaqaalahoogana maaha dhaqaalo buuran oo la odhan karo da way ka feeyaan oo 40 caruur ku dhawaadkan ama 38 caruura iyo labadii waalid iyo nolosha dhan ay ku kafeeyaan marka muuqaal ahaan waad arkaysaa lamiska xiran yihiin noloshii ku nool yihiin gurigay ku jiraan tiradoodii badan hooyada waad arkaysaa daal baa ka muuqda iyo waxa ka muuqda maxaan ku yiraahdaa dee maamulka iyo nidaamka iyo weliba mas'uuliyadooda iyo cuntadooda iyo carruurta intan oo dhan inay la tacaalayso iyada iyo odayguba waa dareemi karaysa marka waa qoys saboola dabcan maaha qoys dhaqaale iyo awood badan iyo wax badan haya laakiin beerahoodaas isaga tiirsan yihiin baa laga yaabaayo darowgoodaas iska cunaan iyo cambuladooda waxay soo helaan bay intay buga geliyaan bay jiifsadaan waan ka tacabtaxkino markaa habla iyo inamo imisay kala yihiin 8 caruuraha sahray carruurtani 38 ahi waxa weeyaan 10 kamid waa gabdho ama waa hablo qofka sidoo yaqaano halka 28 kaloo inta soo hadhayna ay yihiin wiilal waan ka weyni waa imisa jir ka u yarista waa imisa jir carruurta ninka ugu weyni waxa weeye carruurta ama ilmaha ugu weyni waxa weeye 23 jir halka ka ugu yarna yahay oo kii ilmihii ugu dambeeyay dhashay waa 4 bilood saar arrinka cajiibkii odayaashii hore Soomaalidu hadday maqli lahaayeen nin odayo 28 wiil leh bariida wiilasha aad kala raadinayeen walowday marka la yiraahdo wada gabdhihii baa adduunkii Soomaali badan iyo qoysaskii la dabaashay oo ka wax tariyo haddana berigii aadka loo raadin jiray wiilashu ay qiimaha lahaayeen oo ninka saa ku ducaysan jiray inuu wiilal helo bal waxaad suuraysaa nin odayo leeyahay wuxuu leeyahay 28 wiil baa soo barbar istaagaya caadi ma waxa weeye ninkaasi nin nuclear haysta kama yara ama kama hooseeyo laba badan buu leeyahay oo cirkii dhulka waa hubka darandooniga u dhaca oo uma dhinaan filaya ka waraga odayaasha la dhageysto ka mid noqon lahaa Soomaaliya waan gartay cabdixakiin waxa kala jirtay murti Soomaaliyeed oo tiraada haweenkii geelaba waa la hidaraaca de hablaha ay dhashay ee 10 hablooda de iyagana hadii la guursado waxa laga rajaynayaa inay 30 iyo in ka badan badhalaan sida hooyadood de meel hablihii marka la sii carboonan inkastoo yaryar yihiin walow saara ay yaryar yihiin arrinka cajiibka ah ku jira waxa weeye gabadhani waa la eegay dhaqaatiirtu way eegeen waxay yiraahdeen arrinkani waxa weeye waa genetic ama waxa weeye waa hidde ama waa hidaraac waxani waana wax ku jiro inta badan beedka ama waxa la yiraahdo xanta ku jirta ayaa tiro badan ay galayaan meesha samaysmaysaa marka kulli qofkii doonaya tiro inta badan ee waayahay calafkuma ku siima waxa filayaa inaanu kallaba lugoodinayno beeshanta qaaradood qoyska uu u baahan yahay wadamo badan baa jiray markoo dadkoodii aad tarankoodu aad u yar yahay oo laba iyo wax ka yar u dhalo